Waa magaaladan oo gaadiid ahaan loo isticmaalo dameerada, isla markaana aan wax gaadiid ah laga ogolayn oo ay mamnuuc ka yihiin. Magaaladan oo ku taalla jasiirad ayaa dadkeeda oo ku dheggan dhaqan ay horay u isticmaali jireen awoowayaashood qarniyaal ka hor, ayaa waxa ay kaliya gaadiid ahaan u isticmaalaan dameerada oo ay wax waliba oo ay u baahan yihiin ay markaasi ku qabsadaan. Qof waliba ama qoys waliba oo magaaladan jasiiradan ku taalla ku dhaqan ayaa waxa ay leeyihiin ugu yaraan hal dameer iyo wax ka badan si ay gaadiid ahaan ugu isticmaalaan, waxaana laga aaminsan yahay magaaladan in dameeruhu ay ka waxtar badan yihiin gaadiidka kana ay dhib yar yihiin sida ay dadkaasi sheegaan. Qoysaska aan dameeraha lahayn oo loo yaqaano inay faqiirin yihiin ayaa iyaguna ku qasban si ay u helaan waxa ay rabaan in ay kireystaan dameero ama ay ka soo tabalsadaan ciidaha deriskooda ah saacado yar. Mararka qaarna waxaa ka jirta in shay lagu beddesho ama wax lagu beddesho. Mararka qaar dadka ayaa dameeraha ka raaca halka ay badanaa ku soo rartaan waxyaabaha culus, mararka qaarna ayba u isticmaalaan dameeraha gaari gacan ahaan. Dadka ku dhaqan tuuladan ku taalla jasiiradda badda saaran, dadka degan jasiiradda Amu ee ismaamulka Lamu ee waddanka Kenya ayaa sii wada inay raacaan dameerka iyo in ay u isticmaalaan dameerka gaadiid ahaan, waana gaadiidka kaliya ay ku maraan meelaha kala duwan ama xaafadaha kala duwan ee magaaladan jasiiradda ku taalla dhexdeeda. Dhaqankan ayaa dadkan waxa ay ka keeneen markii hore Suldaan Cusmaan oo ahaa odayga magaaladan kuna isticmaali jiray dameeraha dhulka xeebta ah, taasi oo hadda dadka magaaladan jasiiradda ay ka dhigteen caado dhaqameed ay hiddo u leeyihiin, lagana jari waayay jiilka jiilna ay ka sii dhaxlaan. Dadka degan jasiiradan ayaa xusa 100 sano iyo in ka badan oo ilaalinayeen dhaqankan qotada dheer ee gobolkaasi ka jira, isla markaana ay dadku isticmaalaan kaliya dameeraha iyagoo ka fogaanaya gaadiidka kale ee baabuurta. Waxaana dhanka kale magaaladan jasiiradda ku taalla ka mamnuuca guud ahaan gaadiidka qaybihiisa kala duwan marka laga tago dameeraha iyo doomaha ay markaasi ku kalluumaysi tagaan. Kaliya magaaladan waxaa loo oggol yahay hal baabuur oo uu leeyahay guddoomiyaha gobolka Lamu iyo sidoo kale cagaf-cagafyada qashinka qaada beerahana lagu falo si markaasi ay dadkaasi u isticmaalaan dameeraha. Barasaabka Lamu oo ku qasban in gaadiid kale uu raadiyo ayaa hadda ku fakaraya inuu soo bandhigo gaari labaad oo aan ahayn gaariga guddoomiyaha, isla markaana uu ku doonayo in gaari ambalaas oo dadka caafimaad ahaan ay u adeegsadaan, isla markaana dadka si degdeg ah isbitaalada loogu geeyo in markaasi uu dadka ka dhaadhiciyo, balse ilaa iyo haatan laga diidan yahay.